السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa xasan siciid. waxaan caloosha ka xanuunsanayay ilaa iyo 93 ilaa iyo 2020 dabayaaqadii 2020 ayaan waxaan isticmaalay daawada doctor jaamac. runtii calooshaydu may fadhiyin ilaa iyo 93 ilaa 2000 markaan isticmaalay daawada doctor jaamac ilaalo baa iigu horreysay in ay calooshaydu caadi noqoto. calooshaydu waxay lahayd xanuuno badan. xanuunadaas waxaa ka mid ahaa mar nabar ah, mar shuban xalle bay lahayd. waxaa laga yaabaa maalintii 4 jeer ilaa 5 jeer inaan galo oo majiir suuliga galo oo weliba majiir leh. cuntada way i dhibi jirtay. cunto aan ka dhergo waxay iigu horreysay markaan daawada doctor jaamac qaatay, ama aan saan u cunahayay si caqliga inta isaga daayo baa iga dambeysay. runtii dhakhaatiir badan baan maray. dhakhaatiirta badan aan maray waxaa ka mid a meelo badan oo dhakhaatiir aan u tegey. waxaa ka mid a Djibouti, waxaa ka mid a Ethiopia. meelahaasoo dhan markii shaybaarada baaraan waxay yidhahdaan marcos baa ku jira. xashaas xaalada ku jira wax daweeya. intaasoo dhakhtar aan maray Soomaaliya, intaasoo dhakhtar baan maray. Djiboutina waa tegey, meesha la yidhahdo Ethiopiana waan tegey. runtii meel aan is iraado daawadeedii waxbay ku tartay maan arag. haddana ilaa iyo 20 iyo dhowr sano ilaa 2000 ilaa 94 waxaan ku dhex jiray daawo, ama anaa ka shaqaynaya ama dhakhaatiir baan la shaqaynayay. intaa weli ma arag dhakhtar ama daawadiisa ama taladiisii aan ku caafimaaday. waxaan ilaahay amarkiisa markaan qaatay daawada doctor jaamac goortaan 15 xabba marayo 17 xabba marayo ayaan waxaan is iri cayil intaa ka badan haddaad cayishid amay wax kale kugu keentaa oo waxaan la diriyay cayilka. sidaa darteed markaasaan ku joojiyey oo maan intii kale xataa weli wax inay ii geelin maan u malaynaya maan isticmaalin. waxaan u isticmaalin waxaan ka baqay inaan ku cayilo oo cuntadii oo dhadhankeedii ii macaanaaday. cuntada laftigeedii oo in aliya intaan rabo aan cuni karo ilaa iyo inaan caqligayga isaga daayo mooye. waxaa kan la yidhaahdo in noocyo kala duwan aan cuni karo, iyo hilibka aad ii dhibi jiray oo hadda intaan rabo ka cuni karo, ama geel ha ahaado ama xoolaha kaleba ha ahaado ama ariga ha ahaado saan rabo cuni karo. gaaskii wixii ugu badnaa oo caloosha iga hayay waxay ahayn gaaskiina ilaahay baa iga biskeeyey. runtii waxaan is leeyahay daawada doctor jaamac waa daawo aad waxtar u ah. waa daawo muhiim ah. waa daawo dadku aysan inta badan fahmin. anigu waxaan aad u aaminsanahay daawadaas in dadka gaaska qaba, anigu daawada gaaskan ka isticmaalay. daawada gaaska aan isticmaalay ilaahay waa igu caafimaadiyey. marka anigu waxaan odhan lahaa dadka gaaska qaba, maadaama anigu ay ahayd calooshayda waxa iga hayay 90% gaas iyo xanuuno kale oo ana fahmay dhakhaatiirtu xataa fahmi waayeen. in ilaahay igu daaway daawada doctor jaamac. sidaa darteed dadka waxaan kula talinayaa inay daawada qaataan. dadka caloosha ka xanuunsan inay daawada isticmaalaan baan kula talin lahaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.